وابديتكii ugu dambeeyay warbixin runtii aad iyo aad muhiim ugu ah qof kasta oo suuqa qan stock marketska ka ganacsada ama ku jira si gaar ah suuqa forex qofkii ka trade garaya iyo waliba markaas si specific metalkan ama commodity-gan gold qofkii ku trade garaya sida anaga oo kale waxaan ku fiirinaynaa muuqaalkan si aad u kooban insha Allah maxay tahay saameynta uu ku yeelanayo dagaalka hadda Middle East ka socda ama xiisadda si xumaanaysa ee halkaas ka taagan maxay tahay saameynta ay ku yeelanayso gold iyo waxaanu ka rajeynaynaa insha Allah asbuucan hadda bilaabanaya muuqaalkan hadda maalinka weekend baan duubaya oo gabaanba sida arkay suuq uu xiran yahay hadda xayga ugu dambeeyay uu sameystay last Friday move fiican buu soo sameeyay sida arkaysi taas oo runtii kor u kac la taaban karaa markiiba halkaas waxaadna ka garanaysaa xiisadda si xumaanaysa ama xiisadda juqraafiyeed markaas si kordhaysa wuxuuna markaas gaaray sida arkaysid 5280 dahabka oo ku xirmay taasoo ka dhigan hadda in qiimaha 28 gram ugu yaraan spot gold-ga suuqa ay ka joogaan 5280 runtii waa lacag aad u badan weey inkastoo all time high uu san hayn oo all time high bishii January uu sameystay gold waxa markaa 5598 soo hadda marka maxaanu ka rajeynaynaa guud ahaan stock marketska xaqiiqatan waxa ay tahay si guud markaynu fiirino stock marketska ugu yaraan asbuucan iminka bilaabanaya si khatar badan runtii oo aad iyo aad maaragtay u heer sareysa ayaa la maaragtay la rajeynaya inay uga falcelin doonaan xiisadan si xumaanaysa ee ka taagan Middle East-ga si gaar ah gold-ga markaynu fiirino qiimaha dahabka runtii wuxuu gaari karaa heerkii ugu sareeyay hadii xaaladda gobolku ay si xumaato oo waxaan ognahay gold-gu waxa weeye asad amaana soo markasta oo xiisado dagaal ay jiraan waxa khasab in investors ay lacagtooda ku soo gurtaan markaas oo ay maal gashtaan dahabka si ay ugu ilaashadaan soo kale waxa la mid ah saliidda iyo shidaalka laftirkooda maadaama ay ognahay in Iran markaas ay xirayso ama bas ay xirtay gacanka Hormuz oo runtii saliidaha iyo shidaalka ugu badan dunida halka ay maraan aynu dhigi karno way soo taasna waa garanaysaa waxa ka dhalanaya saliidda iyo shidaalka labadaba sidoo kale iyagana ay cirka galaan hadaba biri oo maanday insha Allah horta waxa iska cad aynu arki doonaa biinillah in gaab aad weyn uu ku furmi doono spot gold-ga gaab aad weyn runtii inuu ku furmi doono isla markaasina qofkii tomorrow baa gareeya ilaa waxaan aaminsanahay Friday-ga at least asbuuca soo socdo oo dhan markasta ay xiisadu ay si xumaato yani trade-ka aad gashid biri oo maanday ilaa Friday-ga 5 maalmood ee suuqu furan yahay runtii waa hayn karaysaa kaliya waxaanu ka rajeynaynaa inuu kor u kac sii sameeyo iyadoo aynu qiyaasayno markasta ay xiisadu ay si xumaato in gold all time high markaleeto iyo kor u kac runtii aad iyo aad u sareeyo inuu sameyn karayo